السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك كحرم فتوش فاميلي سودا وهذا ولاشن فتوش channelka daawanaysiina waa Fatush Family maanta waxyaabo badan baan in ka hadli doono waa update keeni waxyaabaha aan ka hadli doono waxa kamid ah Biden Tuesday oo ah address the nation ah oo markuu la hadlayay like dawladdiisa dadkoo dhan iyo caalamkaba waxa la yiraahdaa waa dhaqan ay sameeyaan madaxda dhan oo waligoodna soo jireen waxa la yiraahdaa address the nation okay وسمين دونا كاس وحلو يركضونان دونا address the nation مدي هراء because وحصعدا راشيا دجالة كصعدا راشيا قرية ما هنا عالم كرن أو عبسنايا يعني لقى عبسنايا ده كلا ده وراشيا سو مركا يور بحنتي وجودن بيس يوكرين راشيا أو قبضتي قيب يوكرين كمدا مركا سودا وهذا إن شاء الله برنامج كنا الشهر ده أصحاب هذا الله شهر قري هذا نوع سبته سودا وهذا هرنا ولا تشوكتنا سودا وإن شاء الله سبسكرايب ندى channel وقبته أوكي فيديو جنا لايك سي السلام عليكم كسو دواده فاتوش فاميلي اونلاين ستور oo aad ka helaysid daahiye aad u qurux badan daahiyada design-madi ugu dambeeyay ayaad ka soo dalban kartaa hadii aad xiiseynaysid naga soo wac taleefanka shaashada ku qoran ama Snapchat-kayga igu darso also waxaan hayaa go'yaashii sariiraha iyo miisaska qadada alaabta lagu sharaxayay oo aad kala duwana state kasta aad joogtina shipping waan sameeyaa hadii ilaahay idmo soo sida ogsoonideen qas badan iyo dagaal ayaa waxa ka socda kulay reer Ukraine uba dareemi kara pressure-ka iyo dhibaatada dagaal baa ka socda qax baa ka socda dadka qaarkood way joogayaan way isteegareynayaan meel ay u baxaan ma yaqaanaan waxa ku socota dagaal cir iyo hoos dhul iyo kor oo ku socda labadaba ku socota caasimadii labaad Ukraine ayaa la galay baa la yiri badana xoogooda waxay isku geeyeen Kiev oo farasta caasimada koowaad ah bay xoogooda isku geeyeen laakiin waxa la yiri tabartoodii yani waa la galay caasimadii labaad okay dagaal aad u xoog badan ayaa ka socda sidoo kale madaxweynaha Russia Putin wuxuu sidoo kale uu dalbay oo diyaar garooba dhahay nuclearkiisa okay nuclearkiisa yaa وأرين آد يآد لغنا حي دتك عالم كدن تصيصي أنت وربا إنه حد آد so لبنو عيا الله فسرتي مركو لقولي نوكلير كيس إنه ديار صدق أوكي لبنو عواي ما يعني all the nuclear كسرن راشيا يعني يوكرين كريو وما استعماله so درس كودن عيا عبسنا يقول يا إن سيدا كله واحد شرطة إن شاء الله لقسمه إن بنجيادي أول بنجيديسي هاي بنجيدي عالم كإن إسكو راعين يونيون يوروب دن إن لقى بانجرايو إن بنجي وينا سويفت أو لعقت كي يودح مريسي أوكي لعقها دن متك وينا وأي مريسي لعقتيسه إن لقى فريز جري كل جيس من الفريز جري وحال فريز جري يعني بنجي كلمة وبنجي بدن سيدو كلا دت كم مدحضة بطي ولي لو ما قبل يعني بطي أزي وجوني إن أسجنا سكشن لصاريا عنقبتين إن لصار وحال صاري دت كود إن أبليونير ردي مليونير ده أو دن عيال صاري وحودي أسد كوديدن وحلا سكودا هذا وحي أهيستور دن أو أما جوريها هذا أما محل بيجري دقالة دن هذا واحد كستو يستر عقاد all وحلا صاري فريز بلا صار ولا فريز كري مال كستو وحكوليهن الدونك ولا فريز كري أوكي مركا أول بونهرة وشاقي إن ودعي دونتو ريتايليشن يعني وحو مركو حناقه oo de because waxa soo dhan markii laga waxeeyo di kale intaas kuma iska sara diyaaradaha dhan ama aha Russia ku fly gareynaya Russia flyadi ku ka sameynaya wadamada kale wixii dhan ay kana bataata wala joojiyay shalay ay ku dhawaaqeen always ku raaceen okay so marka aad ba cabsida nuclear muxuu isticmaali doonaa madris ku sii deyn doonaa ma Ukraine dhan buu ku baabi'in doonaa because hadda Ukraine yani waxa la yiri almost waxay sheegeen 30% مية أمس 25 هوب كيسي وهيستين واستعمال أوكي حتى هير وحن برتي هير وحال جاريا أود يسفير إنني أود بدنت هاي راشيو إن وحال لفيرنا يا ولا قياسه يا
awoodiisii inta uu soo faar isticmaalay inta hub uu isticmaalay nin la taraagareynayo la fiirinayo soo waa leeg qofka markii awoodiisu yaraato baa anigu aadi karaa kaliya mar kale ma aadi kara adoo yiri waa camal okay soo waxaa la fiirinayaa hadda awoodiisa intuu isticmaalay 30% miya wax saas u isticmaalaa la yiri hubkiisii okay soo marka ciidamana waa u direen wadamada dariska la ah laakiin waa wax aad looga naxo in uu alert gareeyo ama diyaar garoobo uu dhaho nuclearkiisa okay Sweden Finland all dadkii dariska la ahaa aad ay cabsi xun uga taaganta sidoo kale inta lagama baxa shirka waxa waa daqiiqad waxa la Biden oo gurigiisa jooga Delaware hatta waxa la daqiiqad kama baxo miitimada iyo wada hadalka because de intaas bis looma cabsanayo waxyaabo badan ayaa ka suurtooda okay ayadoo awalba si dhaqaale markuu asaga effect garayso ay dhibaatayso asaguna wuxuu dhibaateyn karaa dadka kale marka cid maanta garan doonta Ukraine markuu ka soo jeestay cidda next noqon doonta iyo nuclearkaas cidda uu ku soo diin doono cidna ma garanayso soo hadda kaliya waxa kaliya loo diyaar garoobaya waxay tahay in cyber attacks you know like ku xanaaqo inuu xagga internetka iyo uu soo aado ayaa laga baqayaa soo inta waa la isdiyaariyay America inay iska jirto attackooda because markii intaas oo dhan laga xirto suuqiisa down uu noqdo de ninka pressure la saaro waxa waay asaguna waxa waay yaa awoodiisa inta u harta ay isticmaalaya sidoo kale madaxweynaha Ukraine ayaa wuxuu ka codsaday Elon Musk waa ninka ilaahay baa qowad weyn lacagta ugu badan ee America leh waay Elon Musk in uu siiyo hadii lacala uu jaro qadka okay internetka hadii uu ka jaro Ukraine Russia ka jarto Putin uu ka jaro in uu la soo gaaro caawin ah u sii daayo internetka waana laga aqbalay baa leeyahay that was a good news laakiin yani internet kale maxay tahay ninkii baa laga dhigay cir iyo dhul aeroport meel loo cafiyo ma jirta gas meelaha gaasaska ay ku kaydsan jireen everywhere madaafiic intaas oo hadda tiradii korka ma haya intaas oo misal ayuu ku soo daayay marka xaaladdu aad ay u xuntaa sidoo kale madaxweynaha ayaa wuxuu leeyahay Biden first address the nation taas oo waxa la yiri ka duunaan doonta ku hor loo sameyn jiray waa madaxweyne kasta hadal uu sameeyo yani uu la hadlo dadkiisa iyo maxaa la jiray iyo madaxda iyo caalamka dhan uu la hadlo address the nation baa okay waxa ka soo qayb gala Supreme Court ka soo qayb galayaan all xisbiyada labada xisbi way ka soo qayb galayaan okay madaxweynaha uu uga soo qayb galayaan yani the whole the United States dadka la sheegay waa madaxda dhan baa ka soo qayb galaysa marka waxa la yiri wuxuu uga hadli doonaa Ukraine Russia dagaalka ay Ukraine ku hayso sidoo kale waxyaabihii ay ku caawiyeen ama sida ay u caawiyeen Ukraine أنا ما كرن كره سوى عاوية أيوك هذا دونا يقطرت إلى هاي راشيو ويرك إقعاد يوكرين أوكي because the ويرك إقعاد كريه كما إقعادين وحوا يوروب أردن أي الله عبسنا يعني مركو حالي وكدونا دونتا أدرس النشيم ذي خرق إن شاء الله وحرجينا يا دجال عد كستوص سامية إن أديكو waddankaaga waxa laga yaabaa in istiraad meeshaas ay ka joogtaa muxuu ku saameynaa caalamka dhan uu isku xiran yahay haday lacag ahaan lahayd haday dhaqaale ahaan lahayd ilaahay markaa naga joojiyo oo dhibkaas ha naga yasiro sidoo kale dadka Ukraine ayaan ayakana u duceynaynaa in dhibkaas yani ilmo yar dadkii ugu liitay oo ugu yani xoog yara ayaa waxa arkaysaa jidadka ku lugaynaya intaas oo waxa la yiri dad baa ka baxday jidka iska lugaynayaan qaar waxa lagu leeyahay waxa heshay maxaa la dhigi jiray kiyu yani meeshii u socdeen borderkii u isagiri kari haday gaari ku baxeen waxa la wadooyinka iyadoo lagu jiro oo laymanka lagu jiro ay dadka gaasaska ka wada go'een oo meesha gaasaska uga baxeen waxaad arkaysaa leeyahay ilmo yar iyo waalidkood oo wixii qaadan karaan intay qaateen ilmahooda gacanta ku qabsadeen
2 days lugeynayaan okay so waxun baa ka jira dad xataa waxaa jira leeyahay meesha dagaalku ka socda jooga jecel inay baxaan laakiin bixi waayay because waxay dhaheen inaan gurigan ku dhex jirno oo misalku saa u dhaco waxaa ka intaan bixi lahaa waxaa iiga roon inaan meesha iskaga jiro because waxay dhaheen meel la mara malaha yani xuduudadii dhan meel la mara male okay so wax qatartiisa leh aad bad waxyaalaha qaarkood markaa daawatay aad ayaad uga xumaanaysaa dadka qaarkooda nimanka iyadoo la yiri 18 ilaa 60 ha iska joogeen iyo bixin ha dagaalameen ayba dadka qaarkood waxa arkay iyagoo borderka intay familkooda geeyaan dhahayaan mala baxaysaa dhahaa maya dib baan u noqonayaa inaan dagaalamaan rabaa gabdho dagaalamaya lagu tusayaa oo isdiyaarinaya oo leeyahay ma baxayna anaka wadankeena difaacanayna dee madaxweynihiina sidoo kale Ukraine Zelensky asagana uu ku jiraa uu joogaa inkastoo hadda markii Syriadii la qabsaday Syriadii labaad la qabsaday dee tii kale lagu dhex dagaalamayo la yiri choice miyuu samayn doonaa oo miyuu bixi doonaa because markii dee hadii laga tambadiyo oo meeshii la soo galay dee waxaa sugaysa male soo markii qiiq iyo dabba ka kacaya I hope dariskoo dhan iyo dad kasta iyo Soomaali iyo meel kasta ay joogaan insha Allah inay ku badbaadsan yihiin kala socod Fatuush family insha Allah waxyaabaha ka soo siyaada aniga baa inoo soo share garanaya hadii la rabo Ilaahay idmo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.